faahfaahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qarax nooca miinada ah oo ciidamo ay ka tirsan yihiin kuwa Itoobiya kana qayb ah howlgalka amisom ee Soomaaliya ee lagu la eegtay qayb ka mid ah gobolkaasi Bay. Qaraxyadan oo ah kuwa isxigay ayaa waxa la eegtay kulaya ay la socdeen ciidamadaasi kuwaasi oo ka soo ambabaxay deegaanada Bardaale kuna sii jeeday Qansax Dheere. Macadda khasaaraha ciidamada Itoobiya ka soo gaadhay weeraradaasi qaraxyada ah ee la eegtay, balse dadka deegaanka ayaa sheegay inay maqlayeen jugta miinooyinkaasi. dhinaca kale wararka ka soo baxay Al-Shabaab ayaa waxa laga hadlayaa weeraradaasi iyo qoraal ay soo sheegeen in qaraxyadaasi ay ku gubeen mid ka mid ah gaadiidkii ay wateen ciidamadaasi xilli ay marayeen duleedka magaaladaasi Bardaale ee gobolkaasi Bay. ilaa hadda ma jiraan wax rasmi ah oo ka soo baxay taliska ammaanka ee amisom gaar ahaan ciidamada Itoobiya iyo sidoo kale maamulkaasi Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ee ku howlan ammaanka si ay u sugaan waqtigaasi. Xamse Dabaali, Telefishinka Star.